بسم الله waxaynu qaadanaynaa qaybtii labaad ee meelayaasha ama prepositionada luqadda Jarmalka ee loo isticmaalo iskoolka ama shule. So waa mar kale iyo grammatic kusoo dhawaada dhamaantiin. Grammatiga sidaan horeba usoo sheegnay waa qayb muhiim oo luqadda ka mid ah. luqad kasta oo luqad labaad aad ugu hadashid waxa khasaba inaad grammatigeeda taqaanid. Soo dhaangaada luqadda grammatigeeda aqoonayn kuma hadli kartid. Soomaaliga ma baahnid inaad grammatic badan ka taxadirtid sababtoo automatic waad iska fahmaysaa wax badan sax iyo khalad wuxuu yahay laakiin luqad labaad igaal hadday tahay English hadday tahay Dutch Faransiis Spanish Arabish luqad yarta noqoto luqad kasta oo ajnabi aad ku hadashid waa khasab inaad grammatiga si fiican u taqaan tusaale gaaban waxaanu rabnaa inaanu ka hadalno iskool baan dhigtaa iskool baan dhigaa iskool baan dhigan jiray meelhabla iskool ka dhigan jiray iskoolkan joogaa iskoolkan ku socdaa iskoolkan ka iskool baan rabnaa inaan ka hadalno halkan toddobadan meelaya ayaynu isticmaalinaa mid ka mid ah mar walba aynu iskool ka hadlayno mid uun toddobada ka mid ah ayaynu isticmaalinaa haddaynu marka kuwaasi ka tagno ama aynanba fahamsanayn hadalkeeni ma sixi karno tusaale haddaan ku idhaahdo fokomishtu xagee ayaa ka timi oo aadan garanaynin waxa aad kan hadda ama meelayaha hadda aad isticmaalaysid ima dhihi kartid ama si toos ah ima oran kartid iskoolkan ka imi ich komme Schule geht nicht. Ich komme Schule wax jira ma. Ich komme de Schule auch gibt's nicht. Iyadana wax jirta ma. Sadarteed waxaan ku khasbanahay ginaaw inaan naqaano meelayaha ama prepositionka aan halkan u isticmaaleyno si aynu jumlo sax ah u niraahno ama u qorno. So qaar kamid ah casharkan qaybtii hore ayaynu ku qaadanay waxaan rajeynayaa inaad ka heli kartaan YouTube-ka iyo waliba Facebook-ka meesha hadba naga daawanaysid qaybtan ku xigta ayaynu kaga hadalnay qaybta labaad ayaynu sharaxaynaa so fokomishtu xagee ayaa ka timi ich komme von der Schule waxaan ka imi iskoolka fokomishtu xagee ayaa ka timi ich komme von der Schule aydan halkan form baynu u baahanahay kan ayaynu u baahanahay ich komme von der Schule iskoolka ayaan ka imi ich komme aus der Schule iskoolka ayaan ka imi beides kannst du verwenden labadaba waad isticmaali kartaa so beides kannst du verwenden entweder so waxaad oran kartaa haddaad rabtid mar fiican malaha Soomaaliya boqolkiiba wax ku sharxno aydan mar waxaad isticmaali kartaa ich komme von der Schule waa sax hadaad von der Schule isticmaashid labadaba waa sax haddaad tiraahdo ich komme aus der Schule waa sax beides waad isticmaali kartaa labadaba waad isticmaali kartaa yani ich komme von der Schule haddaad tiraahdo waa sax haddaad tiraahdo ich komme aus der Schule waa sax aydan markii lagu yiraahdo xagaad ka timaad leedahay iskoolkan ka yimi von iyo aus labada mid ka mid ah waa isticmaalaysaa labaduna waa isku mid kasta midka kale bedel ayuu noqon karaa doorashada adiga ayaa iska leh haddaa isticmaashay ich komme von der Schule waa sax haddaad tiraahdo ich komme aus der Schule waa sax labada midka rabtid ayaad isticmaalaysaa mid kasta macnihiisu waxa weeye iskoolka ayaan ka yimi ich komme von der Schule iskoolka ayaan ka yimi ich komme aus der Schule iskoolka ayaan ka yimi wohin gehst du xagee ayaa u socotaa ich gehe zur Schule iskoolka ayaan u socdaa halkan zur Schule lama oran karo iska jira zu waa meelayaha laakiin geht nicht zu kaligeed ma soconayso waxaan ku khasbanaynaa idqaam sameeyno maxaa yeelay halka kan waa prepositionen zu kommt aus gehen ayay ka timi Schulena waa nom sadarteed waxaan ku khasbanayaa article inaan qaadano waxaanu sameynay idqaam ama verschmolzen sadarteed maxaanu ka dhiganay zur der Schule ayaa laga wadaa aydan ich gehe zur Schule waa la idqaam gareeyay waa la isku xidhay ich gehe zur Schule ich gehe taas markaleenu baranayna insha Allah hadda casharkan kuma dhex sharaxayo idqaam muxuu yahay xagee bay ka timi su'a laakiin waxaan rabaa kaliya inaan xusuusiyo zu kaligeed lama isticmaali karo mar walba inay ertaas la socoto ich gehe zur Schule haddii aad erta ka jiraysid waad ka jari kartaa laakiin waa inaad dee gaar ka dhigtid markaa waa inaad dee gaar u qortid entweder zu der Schule ama zu Schule sida ugu fiican erta inaad deeda qarisid oo erta aad suuda ku lagtid aydan ich gehe zur Schule waxaan u socdaa iskoolka wohin gehst du ich gehe zur Schule waxaan u socdaa iskoolka ich gehe in die Schule waxaan u socdaa iskoolka halkanna labadan midka rabtay ayaa isticmaali kartaa haddaad tiraahdo ich gehe zur Schule waa sax haddaad tiraahdo ich gehe in die Schule waa sax labaduba waa sax labada midka rabtid ayaa isticmaali kartaa wo bist du xagee ayaa joogtaa
wo bist du xagee ayaad joogtaa qof baa ku soo wacay meeshaad joogtid ayuu rabaa inuu ogaado adigana iskoolkii ayaad joogtaa maxaa ku jawaabaysaa ich bin in der Schule ich bin in der Schule iskoolka ayaan joogaa wo arbeitest du xagee ayaa ka shaqaysaa wo arbeitest du xagee ayaa ka shaqaysaa ich arbeite an der Basche Academy Schule ich arbeite an der Basche Academy Schule waxaan ka shaqeeyaa iskoolka Basche Academy wo kann man die Sprache gut lernen wo kann man die Sprache gut lernen xagee ayaa luqadda si fiican looga baran karaa Sprache lernt man für die Schule iskoolka ayaa luqadda laga baran karaa wo für die Schule iskoolka ayaa si fiican looga baran karaa xagee luqadda si fiican looga baran karaa Sprache lernt man für die Schule iskoolka ayaa si fiican looga baran karaa luqadda nein Sprache lernt man nicht auf der Schule sondern du musst dich selbst beibringen luqadda lagama barto iskoolka waa inaad adigu isbartid so aydan markaynu ka hadlayno iskool wax laga baranayo waxbarasho maxaynu u baahanahay fiya ayaynu u baahanahay fiya meelayahan fiya ayaynu soo qaadanaynaa aydan Sprache lernt man für die Schule iskoolka ayaa luqadda laga bartaa nein ayuu yiri kana wadiidan yahay iskoolka laga barto wuxuu ku leeyahay iskoolka laga barto waa in adigu isbartid muxuu isticmaalay markan auf ayuu isticmaalay aydan halkan laba mid ka rabtid baa isticmaali kartaa hadaa rabtid waxaa oran kartaa für die Schule hadaa rabtid waxaa oran kartaa auf der Schule labada meel ay mid ka rabtid baa isticmaali kartaa aydan Sprache lernt man für die Schule luqadda iskoolka ayaa laga dhigtaa ama iskoolka ayaa laga bartaa luqadda nein Sprache lernt man nicht auf der Schule sondern du musst dich selbst beibringen luqadda lagama barto iskoolka maya ayuu yiri luqadda iskoolka lagama barto laakiin waa inaad adigu isbartid du musst dich selbst beibringen waa inaad adigu isbartid iskool lagama barto dabcan luqadda iskool boqolkiiba kama baran kartid laakiin inaad adigu isbartid iskoolku waa tilmaamay soo laanga waliba qofku wax ku dhigaya uu yahay qof aad isfahmaysaan isku luqad tihiin waxaad ka heli kartaa tilmaan iyo inaad adigu wax ka fahamtid laakiin barashada aday kugu xidhan so aydan meelayaasheenu halkan ku qaadanayna maxaa ka mid ah waxaanu baranay maanta suu waxaanu niri markii iskoolka loo socdo ayaa la isticmaali karaa in ayaanu baranay inna waxaanu niri markii la joogo iyo markii loo socdo labadaba waa la isticmaali karaa fiya waxaanu niri markii waxbarashada iskoolka laga hadlayo iskool baa wax ka bartay iskoolkaas wax ka bartaa iskool baa lagu bartaa barashada iyo iskoolka markii la isku xidhay ayaa loo baahdaa aufna waxaan niri sidoo kale iyadana waa la mid cashirka horena auf waan ku qaadanay iyadoo macno kala samaynaysa phone iyo aus waxaanu niri markii iskoolka laga yimaado ayaa la isticmaalaa sida ich komme von der Schule oder ich komme aus der Schule waxaan rajaynayaa inaad fahamteen dhammaantiin wixii shaki idinka jiro oo aad fahmi weydaan commentiga insha Allah noogu qora waan idinka soo jawaabeynaa waxaan rabaa mar labaad inaan yiraahdo YouTube kanada Bashe Academy subscribe saar sababtoo ah mar walba casharo gramatiga iyo waliba fortchatting ayaan soo gelin doonaa in aad wax badan ka faa'iidid ayaan rajaynayaa insha Allah waxaan isku daynaa sabciba dhowr maalmood inaanu cashar xiriir ah oo waliba dhinaca gramatiga aan focus ka saareyno inaanu soo gelino sidoo kale page-ka iyaga Facebook ee Bashe Academy casharka u sii share garay saaxiibada like saar haddii aad ka heshid sidoo kaleeto bogga Facebook iyo YouTube-ka meel kasta aad ka daawatid si aan u aragno in casharkan dad badan ay xiisaynayaan aanuna u soo badino casharada caynkaas السلام عليكم ورحمة الله وبركاته